Ilmo yar oo ku dhashay xaaladaha dhif iyo naadirka ah taa oo ah in ay ku dhex dhashaan diyaaradaha oo hawada sare ku jira ayaa waxa ay dhacdadani ka dhacday diyaarad ka soo kici tintay waddanka Jamaica taa oo ku soo jeeday waddanka Mareykanka waxaana lagu soo waramayaa in haweeney uur lahayd oo diyaaraddaasi soo raacday ay hawada ku foolatay halkaana ay ku dhex dhashay diyaaradda iyada oo hawada ku jirta ha yeeshee arrinta la yaabka leh ayaa ah in ilaa iyo hadda lagu muransan yahay ku dhashay diyaaradda dhexdeeda jinsiyadda uu qaadanayo waxa ay tahay haddii ay tahay Jamaican iyo haddii ay tahay Mareykan. Haweeneydan ayaa diyaaradda ay leedahay shirkadda Caribbean Airlines waxa ay ka soo raacday garoonka Kingston ee dalkaasi Jamaica iyada oo ku sii jeeday gegiga diyaaradaha ee John F Kennedy ee magaalada New York ee waddankaasi Mareykanka waxaana lagu soo waramayaa haweeneydan intii ay hawada ku soo jirtay diyaaradda in ay qabatay fool taasoo ay u soo gurmadeen shaqaalihii diyaaraddan kuwa oo ku guuleystay in ay haweeneydan ku dhex umuliyaan diyaaradda dhexdeeda waxaana lagu soo waramayaa in haweeneydan markii ay ka soo degatay diyaaradda loola mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada New York halkaasoo hadda lagu dabiibayo iyada iyo canugeeda. Dhacdooyinka noocan oo ah in ilmaha ku dhex dhashaan diyaaradaha ayaa ah kuwa dhif iyo naadir ah waxaana lagu soo waramayaa in laga soo bilaabo 1929 ilaa iyo hadda ilmaha ku dhashay ay yihiin 74 canug diyaarad gudaheeda iyada oo ku jirta hawada waxaana ay hadda tahay arrinta la yaabka iyo amakaaga leh in lagu muransan yahay canugan jinsiyadda uu qaadanayo haddii ay tahay Jamaican iyo haddii ay tahay Mareykan. Waxa uuna ku waramayaa qareenka arrimaha sharciga iyo soo galootiga dalka Mareykanka Brent Bernstein in ay arrintani tahay in su'aal la iska weydiiyo maxaa yeelay ayuu yiri waa in la xaqiijiyaa in canuga ku dhashay hawada Mareykanka iyo in uu ku dhashay meel ka baxsan hawada Mareykanka. Waxa uuna qareen Brent sheegay in haddii canugan uu ku dhashay intii lagu guda jiray hawada waddanka Mareykanka uu si automatic ah u noqonayo muwaadin Mareykan ah xaqna u yeelanayo in uu qaato dhalashada Mareykanka ha yeeshee haddii daqiiqado ama sakano yar ka hor markii uu dhalanayo ay diyaaraddu ka baxsaneed hawada Mareykanka oo aysan weli soo gelin waxa uu sheegay in uusan xaq u lahayn in uu qaato dhalashada Mareykanka ama uu noqdo muwaadin Mareykan ah. Arrintan ayaa hadda waxaa socota baaritaankeeda halka ay diyaaraddu maraysay markii uu canugan dhalanaya si uu u qaato ama u yeesho jinsiyad waddanka uu ka soo jeedo ha yeeshee dad badan ayaa amakaag iyo fajicisa la noqotay in diyaaradda dib u eegis lagu sameeyo halkii ay hawada ka maraysay markii uu canugan dhalanaya si loo xaqiijiyo jinsiyadda iyo waddanka uu dhalashadiisa qaadanayo. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.